dagaalkii sokeeye ee Mareykanka. Dagaalkani Mareykanka laba qaybood ayuu kala qaybiyay, wuxuuna socday muddo 4 sano ah, waxaana ku geeriyooday in ka badan 800,000 oo qof. Haddaba dagaalkan maxaa sababay? Ayaase joojiyay? dagaalkii sokeeye ee Mareykanka waxaa sababay asbaabo ijtimaaciya, siyaasiya iyo juqraafiya. aan ku macneeyo saagtihiinba dadkan cadcad ee Yurubiyaanka marka ay yimaadeen qaaradan waqooyiga Ameerika, dadkii ku noolaa oo ka badnaa 100 milyan oo qof ayay tirtireen, kadibna tartiib ay iska soo degeen, kadibna adoomo ayay Afrika ka soo gateen si ay ugu shaqaystaan. haddaba sanadu markay ahayd 1776 dhowr gobol oo goboladan Mareykanka ka mid ah ayaa Ingiriiska ka xoroobay, kadibna dhowr kale oo gobol ay la midoobeen, kadibna saas ay ku samaysmatay dawladii Mareykanka. khariiradan Mareykanka ee aan naqaanay maanta u kala dhaxaysa Canada iyo Mexico waxay aasaasmatay sanadu markay ahayd 1848 dabcan marka laga reebo Alaska. khariiradan Mareykanka ku hor taalo waxa u kala qaybsan tahay waqooyi iyo koonfur. waqooyi iyo koonfur waa ay kala cimilo duwan tahay, dadka ku noolna waa ay kala nolol duwan yihiin, wayna kala caqliyad duwan yihiin. aan ku waramo gobolada waqooyi waa gobollo aad u qabow oo barafku waa aad u da'o, taasoo macnaheedu tahay xilli beereedka amba xilliga wax la beerayo aad ayay u yartahay maadaama cadceedu inta badan aanan la arkaynin. saas darteed waxay xoogga saari jireen waxbarashada iyo warshadaha iyo shaqooyinkan caadiga ee technicalka. saas darteed waqooyiga adoomo fara badan oo madmadow Afrika laga keenay kuma aysan badnayn. waxaa inta badan imaan jiro kusoo badnaan jiray Yurubiyaanka maadaama ay dhinaca Yurub ay xigta ay u dhowdahay, halka dhinaca kale ee koonfurta ay ku badan yihiin adoomada laga keenaya Afrika, sababtoo ah koonfurta waa dhul aad u diiran oo beerista ku fiican. adoomadaas waxay ka shaqayn jireen beeraha. goboladan koonfurta ee diiran dadka degan waxaa kale ka shaqaysan jireen lo'da, oo waxaanaad maqashaan cowboyga la dhaho. waxay ahaayeen dad inta badan lo' jira, dhinaca kalena beera leh. farqiga kale siyaasiga u kala dhexeeya waqooyiga koonfurta wuxuu ahaa waqooyigu waxay aaminsanaayeen inuu Mareykanku lahaado hal dowlad oo xoog weyn, goboladuna aynan lahayn amba ayna ikhtiyaar u lahayn inay iskaga baxaan xilliga ay doonaan midowgan gobolada, halka gobolada kale koonfureed ay aaminsanaayeen inay noqon karaan xor oo ay xilligay rabaan iskaga bixi karaan midowgan Mareykanka. haddaba dib ku celiyo sanadu markay ahayd 1848 waa markii la mideeyay goboladan u kala dhaxeeya Mexico iyo Canada. Mareykankan hadda aan naqaano u samaysmay isla sanadaas waxaa la mamnuucay adoomaysigii. haddaba Mareykanka markaan u imano cidda adoomaysiga faa'iidada weyn ku qabta waa gobolada koonfureed, waa isla goboladii aaminsanaa in ay midowga goboladan Mareykanka ay iskaga bixi karaan xilliga ay doonaan, taasoo macnaheedu tahay qaanuunkan caalamiga la soo saaray cidda dhibaatada ku qabta waa goboladan koonfureed, sababtoo ah dadkan madmadow ee Afrikaanta ah sida ay rabaan ayay u isticmaali jireen, shaqaale ma ahayn. haddaba marka la mamnuucay adoomaysiga waxay ka dhigan tahay qofkani aad uma lihid, waa shaqaale xora, xilliga uu rabo ayuu ku shaqayn karaa, xilliga uu rabana shaqada uu isaga tegi karaa. intaana way ka soo horjeedeen. asbaabaha siyaasiga iyo ijtimaaciga oo isbiirsaday waxaa dhacday sanadu markay ahayd 1861 in qaar ka mid ah goboladan koonfureed ay Mareykanka ka go'aan, ay iclaamiyaan inay gobollo ka xora amba ka hoos siibtay midowga gobolada Mareykanka. goboladaasna waxay ahaayeen goboladii koonfur bari, kadibna waxaa soo raacay goboladii kale ee koonfur galbeed. sidaasna waxaa ku midoobay goboladii koonfureed ee midowgii Mareykanka, wayna iskaga go'een Mareykanka, waxayna iskugu magac dareen gobolada konfederaalka. saasna waxaa ku bilaabmay dagaalkii sokeeye ee Mareykanka sanadu markay ahayd 1861 wuxuuna socday ilaa sanadii 1865. dagaalku siduu u joogsaday intaanay isweydiin waa inay isweydiisaan ninkan waayo iyo goboladan kale waqooyi sida ay ahaayeen iyo waxyaalo uga duwanaayeen goboladan kale koonfureed ee fallaagoobay. ninkan waxaa lagu magacaabaa Abraham Lincoln, waa madaxweynihii Mareykanka xilliga, waxaana la doortay intuuna dagaalka sokeeye bilaamin sanadu markay ahayd 1860. markii saa loo doortay goboladan koonfureed way ogaayeen waxa uu soo wado, waa mamnuucidda adoomaysiga.
taasna danahooga dhaqaale iyo danahooga ijtimaaci ayay kasoo horjeedaa. Saasi darteed ayay u go'een dagaalkuna uu bilaabmay. Haddaba siday ahaayeen goboladan kale waqooyi xilligaas? Goboladan waqooyi saa sheegnay waxay ahaayeen gobollo aad u qabow oo ku tiirsan warshadaha iyo waxbarashada, taasoo keentay inay ka dad badnaayeen goboladan kale koonfureed, kana Yurubyaan badnaayeen, kana dhaqaale badnaayeen. Dagaalkuna intuu socday, jabka ugu weyn waxa uu soo gaadhayay goboladan kale koonfureed, sababtoo ah Abraham Lincoln wuxuu amray in addoommada madmadow ee Afrikaanka ee gobolada koonfureed ku sugan in la xoreeyo si ay ugu soo biiraan jeyshka goboladan kale waqooyi. Taasna goboladii kale koonfureed dhabar jebin ayay ku noqotay. Dabcanna dagaalka waxaa ku guuleystay dowladdii Mareykanka ee dabada ku wadatay goboladii waqooyi. Dagaalkuna wuxuu dhammaaday sanadu markay ahayd 1856. Isla sanadaana waxaa la dilay madaxweynihii Mareykanka ee xilliga Abraham Lincoln. Xilligaana waa isla xilligii Mareykanka goboladiisa oo dhan laga mamnuucay addoomaysiga oo dadka madow la xoreeyay. Laakiin sida bani aadam oo kale loolama dhaqmin. Isla xilligaa kadib 100 sano ay qaadatay ilaa qarnigii lasoo dhaafay 60maadkiisii. Markaas ayaa loo oggolaaday inay sida bani aadamka u noolaadaan, shaqada ay rabaan ka shaqeeyaan, basaska meeshay doonaan fadhiistaan, iskoolka ay rabaan iyo jaamacadda ay rabaan ay aadaan, hoteelka ay rabaan ay aadaan, dowladdana xilalka ay rabaan ay ka qabtaan.